Bismillahirrahmanirrahiim. Waa barnaamijyadii aynu ku eegaynay wadamada Geeska Afrika iyo waqtiyadii ay soo mareen. Maanta waxaanu soo qaadan doonaa dalka Suudaan. Dalka Suudaan ayay soo qaadan doonaa isna ku yaala qaaradda Afrika, qaasatan Geeska Afrika. Haddaba barnaamijkan waxaan inagu diyaarinaynaa dhowr maalmood ayaynu ku dhigi doonaa. Qaybta koowaad ayaa waxay oranaysaa sida tan: Maxamed Axmed Al-Mahdi waxa uu ahaa hogaamiye diimeed, waxa uu hogaaminayay dadkii raacsanaa in ay dagaal jihaad ah ku qaadaan maamulkii ka dhexeeyay Ingiriiska iyo Masaarida. Angal Egypt, Al-Mahdi waxa uu dagaalkaas ka bilaabay Abu-Dasiya ku taal webiga Niilka Cad oo 160 kiiloomitir u jirta koonfurta Khartoum. Al-Mahdi iyo dadkii raacsanaa ayaa isku kalsoonaaday kadib markii ay baabi'iyeen 2 saldhig oo ciidamadii dowladda. Waxaa la diyaariyay markab soo qabta Al-Mahdi iyo dadkii la socday. Al-Mahdi iyo taageerayaashiisa waxa ay galeen buuraha yaryar ee Nubia, halkaas oo uu ka helay taageero badan. Sanadii 1883 ayaa dowladda Ingiriiska u diyaarisay ciidan uu hogaaminayay Regency Hackett. Hayse yeeshee ciidamadii loo diray way burburiyay koonfurta Suudaan iyo magaalooyinka ku yaala Darfur, Bahr al-Ghazal iyo Beja. Waxaa qabsaday Al-Mahdi iyo taageerayaashiisii. Sanadii 1884 Al-Mahdi iyo taageerayaashiisa ayaa baqdi geliyay Khartoum. Hogaamiyaha ciidanka Ingiriiska Sarreeya Guuto Gordon ayaa iska diyaariyay inuu ka qaxo Khartoum. Hayse yeeshee waxaa soo weeraray Al-Mahdi oo uu ku weerarsanaa magaalada Khartoum, halkaas oo uu ku burburiyay qasrigii gudoomiyaha gobolka. Markii waxa ay dileen Sarreeya Guuto Gordon, magaaladii Khartoum waa ay qabsadeen. 5 bilood kadib ayaa Al-Mahdi ku dhintay magaalo madaxda cusub ee Umudurman. Khalifa Abdallah ayaa la wareegay hogaamiyihii cusub. Waxa uu dejiyay nidaam dowlad, waxa uu horumariyay nidaamka gaadiidka iyo isgaarsiinta. Waxa kale oo uu dhisay ciidan ballaaran. Qaybtii koowaad ayaa halkaan inuga eeg ee taariikhda iyo barashada dalka Suudaan oo ah dal muslim ah kuna yaala qaaradda Afrika, waliba Geeska Afrika.